barasaabka gobolka Hawd oo weheliyaan xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balugubadle ayaa ka qayb galay munaasabad lagu gunaanadayay tafsiir muddo badan ka socday masaajidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Balugubadle ee xarunta gobolka Hawd. tafsiirkana ayaa waxa muddadaasi dhigayay gudoomiyaha maxkamadda sare ahna imaamka masaajidkaasi Abubakar Sidiiq Sheekh Cabdullaahi Maxamuud aw Cabdi. xafladan lagu gunaanadayay tafsiirka Quraanka Kariimka ayaa waxa laga soo jeediyay hadal iskugu jira duco iyo dardaaran. ugu horeyn munaasabadaasi waxa ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Maxamuud aw Cabdi waxaanu sheegay in uu muddo sanad iyo badh soo waday tafsiirkani isla markaasina intii uu joogay gobolka Hawd ee uu haa gudoomiyaha maxkamadda sare uu dhameeyay tafsiirkani muddaba 4 jeer. tafsiirkii inoo dhamaaday khatinkiisa iyo ducadiisa isugu nimid waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo kale intiina ka soo wada qayb gashay ee tiri tafsiirka dhamaaday aynu ka qayb galno soo barakaysano ee masaajidka Abubakar Sidiiq noogu wada yimid ee tahay noo fadhiya يعني القرآن كقتل كيسة يدعيسة لبرجيسة الشويسة آدم لكم هذا قلنا إلهنا يعني إلك لماذا إنك هذا الشيء سيدك عن هذا الشيء هي إلهي حسيتيسة ديني إنه كان عاجز مني أنا وين أروح أنا يكون بلا قاضي ما أنت يا إنه بلي بقول له أنا من إن أنت تفسير القرآن كأنت عن نور أمين ولا جومه إن أنا جوجيني إما كان سيدي إن شاء الله يكون بلا قاضي إلى أن تبنى وصوب لغنا إن شاء الله تبنى وصوب لغنا قرآن كأنه ودين نورا معنا إلى رحمة قوين القرون الله رباب الناس قرآن كبركات كيس الله ينقص ورابيه الله ينقص ورابيه هو لا يحن مباهنا هاي مركز لا يحل لا تفسير حين لوض سعنا سيد الرسول كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم وحول الناشئ إلهي دينا أبو غي وقعدها كويا لا ويكل النسيب بنيه مال ولا بالشيء بين قطع ما وحده على قدها مساجد مال أركوا ماشي قيمها بدن ضرب الله قول دلوقتي وحفرحد من نوع ضمات تفسير القرآن كريم تفسير القرآن الكريم وفريق مركب بعد وصل مركب أفراد ما سينور ماضي لقيت شيء نفتوي هذا الكلموس كذا ماضي هذا لا إله إلا الله برو أنت كهرباء الله إنه برو إله الأحمد يسعى الله فالصحة إله الأحمد يسعى الله فالصحة استجيب برينا gabagabadii waxa xafladaasi soo gunaanaday barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Xasan Cali waxaanu sheekha tafsiirkaasi dhigay uga mahadnaqay muddadii uu soo waday iyo dadkii ka aflaxay. dabeedna marka ay quraanka dhameeyay waa la isugu yeeri jiray waa ku ducaysan jiray marka علماء السلف كانوا فربنا لقى سوريين إلهان رحمة ده سود يكتمل القرآن كلا خاتمه خاتم القرآن قفك إمك كسر بالعبي فاتحة برب الناس بتوجيه آخرين وحكى سيد رد ده كأنتو كسر بالعبي سورة الفاتحة برب الناس تفسير كيكو جي من النوع هوية وقرآن كي ولا آخرين كليه من النوع قرآن كي معنيه سيا ولا صعب سو كان مسوي أنا مركب أنا سيفا مسوي ومعاني فربنا يو ده أدلة فربنا ولا كين يو واحد بدل باكر كسيجرا مسؤولينtii kala duwan ah ee munaasabadaasi ka hadlay ayaa Ilaahay ka rajeeyay inuu Ilaahay naga soo jebiyo abaaraha daba dheeraaday oo raxmaadkiisa inoo shubo. Maxamed Shiciir Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale TV qaranka Soomaaliland Balugubadle.